halkan waa magaalada Awdeegle ee gobolka Shabeellaha Hoose oo sida idin muuqataahi ay bulshadii ku dhaqnayd ay dib ugu soo laabanayaan. Anu beeran u id meeshan reer waa ku lahay gurigaygu waa gubtay. Awdeegle oo ah magaalo istiraatiiji ah oo isku xirta magaalada Muqdisho iyo gobolada koonfureed ee dalka. 4 Oktoobar ee sanadkan 2025 ayay ahayd markii laga xoreeyay maleeshiyaadka argagixisada oo in muddo halkaasi ku dhuumaalaysanayay. kadib hawlgalka duufaanta aamusan oo ay guulo isdaba joog ah ka soo hoyeen geesiyaasha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo garab ka helaya kuwa Uganda ee qaybta ka ah hawlgalka EUSOM kaasoo lagu jebiyay kooxihii argagixisada Al-Shabaab ee aafeeyay shacabka Soomaaliyeed. magaaladan muddadii argagixisadu ay ku sugnayd si naxariis darro ah ayay u dhibaateeyeen shacabka oo ay noloshoodu ku abuureen cabsi iyo baqdin, laakiin maanta xaaladdu waa mid ka duwan. markii magaaladan Awdeegle argagixisada laga xoreeyay muuqaalka magaalada waxa uu noqday mid ay ka muuqato burbur xooggan. muddadii ay ku sugnaayeen guryo badan ayay gubeen oo ay dab qabadsiiyeen goobihii waxbarashada, caafimaadka iyo kuwa kale ee danta guud waxay u baahan yihiin dib u dhis iyo dayactir xooggan. oo kuwana hantidii shacabka oo ay buriyeen agafyadii beeraha lagu beeranayay oo jeel ku reen dadka masaakiinta ah ay ku nacfin lahaayeen. waa dad aan xariis ka dhamaatay. meesha hadda dambeete waxay ahayd dugsi quraan baa meeshaas quraan baa lagu dhigin jiray. wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga mudane Cumar Cali Cabdi oo uu wehelinayo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sareeya gaas Odawaa Yuusuf Raage isla markaana uu qayb ka ahaa taliyaha qaybta koowaad ciidamada Uganda ee EUSOM sareeya guuto Sam Kavuma iyo saraakiil kale waxay booqasho shaqo ku tageen degmada Awdeegle si loo dhiirigeliyo loona dardargeliyo dagaalka lagu ciribtirayo argagixisada, qiimeynna loogu sameeyo xaaladda amni iyo tan bani'aadanimo ee magaaladaasi, taa oo muujinaysa dadaalada joogtada ah ee dowladda federaalka Soomaaliya ay ku taageerayso shacabka ku nool deegaanada laga xoreeyay argagixisada. halkan waxaad la socotaan dhammaantiin waxaan filayaa dadkiina halkan fadhiya markii halkan nimanka argagixisada cadawga aan ka saaraynay inta cadawga ay gacanta ku haayeen caafimaad ma ka jiriye iskuulku ma shaqeynaa iskuul ma ka jiriye xarun dawladeed ma ku teel MCAD ma ku yiil inta ay heesteen oo deegaankan ay heesteen wax ay Al-Shabaab ka dhiseen oo bulshada ay ugu adeegayaan oo nolosha bulshada wax ku taraayo danta caamka wax ka qabanaya ma ii sheegi kartid. shacabkii dib ayay ugu soo laabteen magaalada Awdeegle balse argagixisadu waxay ugu talagaleen inaysan ka soo kaban oo waxa ay ka burburiyeen wax kasta. halkan waxa laga dhisay MCH iskuulkana waa la dhisay dawladda dhisay MCH laga dhisay wax waliba ay u baahnaayeen degmada Awdeegle dadka halkan jooga haday caafimaad tahay haday waxbarasho tahay haday nolol caadi tahay iyo haday amni tahaba dowladda Soomaaliyeed garab ay ka siisay. shabaabka cadawga ah inay wax ku daraan iska daayay markii halkan ay qabsadeen waxa dawladdiina ay idin keentay idin nabadgeliyeen. 25 bishii Febraayo ee sanadkan maxaa ku dhacay iskuulkii hoose dhexe iyo sare ee magaalada Awdeegle. waa maalintii ugu dambeysay ee macallin Soomaaliyeed halkan oo cashir ku dhigo. cashirka uu dhigayay waa tarbiya islaamiya. waa kana in dhalinyarada ilmaha yararka ah ee halkan jooga ee iskuulkan wax ku baranayay in diinta islaamka iyo tarbiyada iyo wax laga baro macallinka dhigaya waa way qabteen halkaas banaanka higayeen way toogteen waxa ay rabaan inay gadaan waa islaamnimo rabna inaan ka shaqeeyno. shacabka Awdeegle waxay wajahayaan xaalad bani'aadanimo oo aad u adag, cunto yari, biyo la'aan iyo adeegyo caafimaad oo xadidan. inkastoo markii labaad ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay u qaybiyeen
gargaar ka kooban cunto iyo daawooyin kala duwan haddana baahida jirta weli waa mid baaxad leh إلهكم حدثنا عندنا مانت إن الدولة إنه إمادة أو بنانك إنه يسوع أليسو أو قريه إنه فصاها رايشين لسيو دواء لسيو إذا الدولة ده آذن أقوم هذا لنا ويا الناس ميانا وحن كسوين واجب كركودانا واي ما بكبريين أيقونا شعبنا نكبري ما ينوي نكمدين نقول شيء نوفي عنتي ونقول دبي راشين أنا لسيو meel fiican aan joognaa guryaheena joognaa ma sha Allah waan soo dhaweey argagixisadu waxay ka tageen raad burbur ah balse shacabka Awdheegle iyo ciidanka qaranka Soomaaliyeed waxay muujiyeen adkaysi iyo midnimo hase ahaatee dawladdu waxay wadaa dadaal xooggan oo lagu garab istaagayo shacabka ku dhaqan deegaanada laga xureeyay argagixisada Al-Shabaab waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala kala dambeyntii iyo nidaamkeena ku soo laabato isbitaaladkii ama MCH-yadii yaali jireen aan dib u furno in aan repairing ku sameeyno ama aan dib u dhisno iskuulkii si maaragtay dadka deegaankan ay wax ugu bartaan Awdheegle waa astaan adkaysi Soomaaliyeed balse xaaladda bani'aadamnimo ayaa wali u baahan taageero joogto ah ilaa ay ka soo kabanayaan dhibaatadii ay u geysteen argagixisada Al-Shabaab dawladda federaalka Soomaaliya waxay ballan qaaday inay dadaal dheeri ah ku bixinayso sidii shacabka Awdheegle ay dib ugu heli lahaayeen adeegyo waxbarasho caafimaad iyo nolol nabdoon oo waarta